xaflad aad loo soo agaasimay ayaa saaka lagu qabtay magaalada Djibouti waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele ra'iisul wasaare Cabdiqaadir Kaamil Maxamed marwada qaranka Marwo Khatra Xaaji Maxamuud Xayd safiirka Djibouti ee wadanka Shiinaha ambassador Cabdallah Cabdilaahi Migil wasiiro safiiro saraakiil iyo mudan badan oo kamid ah dadka reer Djibouti ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay mulkiilaha shirkadda Touch Road Group khayl lakhwi waxa uu ka hadlay ahmiyadda ay u leeyahay wadanka Djibouti maalgashigu khayl lakhwi waxa uu sheegay inay dhisayaan hotel 5 star ah iyo waliba xarun laga dukaansado waxaanu tilmaamay inuu ku rajan weeyahay inay Djibouti mustaqbalka noqon doonto xarunta Afrikada bari ee ganacsiga ama dhaqaalaha Afrika oo dhan iyo waliba wuxuu yiri adduunka waxaasna halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaanu ku nuuxnuuxsaday ahmiyadda maalgashigu u leeyahay wadanka dhinaca kale waxa uu si dadban ugu amray dhammaan hay'adaha dawliga ah ee la xidhiidha maalgashigu inay u fududeeyaan lana shaqeeyaan dadka maalgashiga wada isla fariintaasi mid la midana waxa uu u diray shacbiga reer Djibouti isagoo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yiri waxa aan halkan ku soo aragnay hadeer toole intaan ni soo gelin meesha uu ku fadhiisan doono aqalkan intan leegay meeshan raggan ay soo dhigi doonaan waxa uu ka sheekeeyay in badan oo uu yiri waxa meesha aan kala kulmay waxa aan filaynin lacagtaydii baa ku daadatay buu yiri meesha cilada ah maantana wax muuqda ma jiro buu yiri lacag badan baa iga gashay buu yiri laakiin wax badan buug inta leeg baan ka sameeyay buu muujinaya dhulkan sida uu adag yahay ama uu jilicsan yahay ama uu u nooc badan yahay iyo biyaha hoos maraya ee dhulkii jilciyay ee u baahan in la gaadho gunta hoose intoo la gaadho maxaan ku dhahdaa dhagaxii adkaa ee madraboorka ha la gaadho waxay ugu gaadhay buu ilaa 80 mitir inaan hoos u dhacdo waxaan fuulayaa in waaba 5 dabaq buu yiri marka yaani dhiiranaantiisa weeyaan waxa aan ka yaabnay anagu iyo kalsoonida uu wadankeena ku qabo dhiiranaantiisaasi waxay gelisay inuu yiraahdo waan aaminay waan gaadhaya lacag waxay doonaysaa iga gashay waana soo xishanayaa lacagtayda oo dadka iyo dalka iyo dhaqaalaha iyo yaani dhiiranaantiisa kolka la isku geeyo waxa ay meesha ka muuqataa in uu kalsooni weyn dalkeena uu ku qabo annaguna inaanu celinno kalsoonidaas loo baahan yahay oo gabigeena maaha madaxweyne maaha prime minister maaha cid kale gabigeennaba wadankeena dhammaantii wixii dad xoolo la gala ama shaqo la gala ama u shaqeeya ama wax ka iibsha ama dawladda u shaqeeyo oo dano ay u geeyaanba inay kalsoonida tusaan baan doonaynaa ugu dambeyntii madaxweyne Geele ra'iisul wasaare Kaamil iyo khayl lakhwi waxay si wada jira u dhaxdhigeen dhismaha cusub ee hotelka iyo shopping centerka ee laga furi doono magaalada Djibouti sanadka 2020 markii xafladu dhamaatay waxaanu waraysi la yeelanay safiirka Djibouti ee wadanka Shiinaha Cabdallah Cabdilaahi Migil oo aanu ka waraysanay bal marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray mashruucani doorka ay ku lahayd safaaraddu iyo sida shacbiga reer Djibouti uga faa'iideysan doonaan isagoo arrimahaas ka hadlayana waa kan horta sidaad ogtihiin safaaraddu waxay ka turjumaysaa siyaasadda iyo aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ka turjumaysaa waxaan la kulmay Mr. Khayl Lakhwi oo ah nin weyn oo maalqabeen ah oo Shanghai degan oo saw ka madax Touch Road Group sagoo ku socda dalka Ethiopia oo suuqa Ethiopia sagoo doonaya inuu maalgelin ku sameeyo waxaan ka yiri fadlan boorta Djibouti kaalay arag Soomaalida tiraada aragti horteed ya haynicine boorta kaalay in saacad in ka yar yay diyaaraddu u socotaa Addis Ababa ilaa Djibouti madaxweynaha Allah iska daayay mudane Ismaaciil Cumar Geele waan u sheegahayd saga qaabilay madaxweynuhu shakhsi ahaan buu qaabilay saga ka dhaadhiciyay
faa'iidada uu ka helayo maalgelin weyn uu ku sameeyo Djibouti isagoo ka yiri in kaga qaba isaga madaxweynaha ilaa iyo shaqaalaha ka ugu yari in uu garab joog buuxa uu ka heli doono hadduu Ilaahay yiraahdo uu yimiday dalka uu dhex maray uu arkay waad arkaysiino waxa la siiyay dhulkii qalbiga Djibouti ku yaalay ayaa la siiyay dhulkani waa dhulka maanta magaalada Djibouti marka la eego ugu muhiimsan weeyaan dhulkani wuxuu doonayaa inuu ka sameeyo in suuq dhaqaale oo in tii ugu horeysay ayuu doonayaa inuu ka sameeyo maxaa la yiraahdaa dalkeena awalkii hore suuqa horta ayaa jiri jiray laakiin special economic zone waa markii ugu horeysay ee in afkaartan iyo fikradani ay timaado علي أحمد رابع علي سيو صاب تي في جيبوتي